عربة تاريخ شاكوية وتاريخ وحام تبي دولة الدجالك صومالية إثيوبيا مركا مدعوينين مركا عبد محمد حفيز كيس عنه وفدين أيها قبل النص وكشف بدو على بسنتها واتعلى هذا ومضبطا وانسكو أجنه مركا نسوم وجا أيها كنور دور كيس كبدو النوت مدي شاي كفاية وحبين نوك كنتي ما وينوت نكتي ما ينقبح عليه مركب الحين بيه كارل وصون قتيل مقع وشيء الحين مقع حبشي كيش الصومالي عن حتى جج بيرقى مكجرين ويقاليسا وان حتى عن لهين وحق وغشك في صوت كان قف صومالي برتوائتنا مركز مقع حقك من نقص راح يسكت سؤاله ويديه وبحي وكم في جواب والسلام عليكم وما صنطه إنه بقى ويديه دل كست إثيوبيا دلع وضنهاي وادي كستو إثيوبيانا مال كستو إثيوبيا كتب سئلو تتبع كشف يستوكون ولا أي حق له لكن هذانا وحاد دستور كان مبني ديجان كست دولتي يدك سلوقات دولة هنا اسمه معمولات وحكومة برتان كل أضمان سياس درادين مقدس الصومالي أي مقدس رسمي والديجان كان لغة أضمان markaan dawladda dhexe aan la xiriirayno afka maxalliga ayaan laakiin halkan waxbarasho xafiis marka maadaama dadka aan Soomaalida ahayn qoomiyadda Soomaalida aan ahayn qoomiyadaha kale faraha badan Itoobiya ku nool ay dastuur ahaan xaq u leeyihiin inay halkan ka shaqeystaan oo ay ku noolaadaan luqadii officialka halkan ka inay Soomaali tahay jaamacadda Jigjigaan waxaan uga furnay institute afka Soomaaliga lagu barto halkaasi af Soomaaliga waa soo baxay af Soomaaliga bartay ay yimaadaan markaas shaqada dawladda ay eligible yihiin marka gabadhaani sanadkii 8 bilood laba teer oo 9 bilood ay luqadda soo baratay waana ku guuleysatay sidaas dawladda deegaanka ugu shaqeysa halkaasi maalinta waxaa la tusay istiraatiijiyadka manhajka waxbarashada siyaasadda dawladda deegaanka wax walba oo af Soomaali ku qoran oo Soomaaliyeysan wax aad iyo aad loogu farxo ayay ahayd marka luqaddu meelaha ay ka xoogeysata waa sidaas sida daatay oo professor Mansuur u sheegay xawlideed ay ku soo kacday laakiin burburkii markuu yimid ayaa u maraysa haddana inay habac u galay oo hoos u noqotay haatan waxaa la joogaa waqtigii haddana aan xawlideed aan ku soo celinayn luqadda haddii aan yiraahdo duruufo adag inkastoo dalkii u ahaa saldhigga ay ka jiraan haddana kama gaabinayno muxuu ahaay inaan u istaagno luqaddu inay mar walba noqoto akademiyadu waxay noqon doontaa akademiyad goboleed gobolkan oo dhan aqoon-yahanada ummadaha af Soomaaliya ku hadlo ummadda af Soomaaliya ku hadasha ee gobolka oo dhan ay cilmi baaris ku sameeyaan yimaadaan qoraaladooda ku soo bandhigaan oo dadka afka ku hadlo oo dhan ka dhaxayso ayay noqonaysaa akademiyada jamhuuriyadda Soomaaliya ay gaar u leedahay ma noqonayso sida